السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا مeel kastoo adduunka ka joogtaan waa idin salaamay. waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin, anigana sidoo kaleeto waa fiicanahay alxamdulilah. mashquul dheer kabacdi waa soo noqday maasha allah. waa ku faraxsanahay inaan dib uga soo noqdo bartayda youtube-ka. marka arrintaas laga soo tago waxaan doonayay inaan ka hadlo arrin ayaantan dambe aad iyo aad mataqaanaa madaxayga u kicisay oo mataqaanaa aan u dulqaadan waayey, aan ka aamusi waayey, ayaa igu kaliftay inaan ka hadlo. arrintaas oo ah walaashan Fartuun Balbalaarka. arrinteeda waad wada ogtihiin saan jeclahay. walaashan Fartuun Balbalaarka waxay soo qaaday hees ay ka duubeen Durdur Media. horta qof aanan fiirsanin ma jiro, hadduu jirana mataqaanaa waa in yar. walaashan Fartuun Balbalaarka hees ayaa laga duubay. heesti markii laga duubay marka hore ku qanacsaneed, Durdur Media soo fariisatay, clip yaraa laga soo duubay ayadoo dheheyso aniga heesta waan ku faraxsanahay, waana ku qanacsanahay. sidoo kaleeto dadka soo qeylin doono aniga uma jawaabi doono oo mataqaanaa aniga dadkaas shaqo kuma lihi. markii dambe ee heesti soo baxday ee dadkii mataqaanaa ay jawaabo soo siiyeen, ee heesta reaction ka soo bixiyeen, waa la xumaatay. aniga saa aaminsanahay ama isdhahayo waa sidaas, yacni inay la xumaatay, yacni dadka u caayeen ee ayadana tiraahday mataqaanaa calool buuran buu ii yeelay. xasan toob sidoo kaleeto surwaal uu leeyahay siiyey, wuxuu yidhahay ku hay surwaalkan jaakad saa ii dhiibay. marka waxaas macquul gal ma ahan, wax caqliga galaya ma ahan. qof kastoo caqli lehna waxaas ma qaadanayo. waxaa fahmi kara arrintan dadka caqliga u saaxiibka ah, qofka kaleeto ma fahmi karo. marka waxay doonaysaa inay naga dhaadhiciso nin surwaalkiis ayaan aniga xirtay. waxaas wax suurtagelaya ma ahan. marka idiin sii wado warkii idin ku daalinin. markay naagta mataqaanaaye la xumaatay heesti, dad baa kula talshay oo yiraahday mataqaanaa maadaama mataqaanaa adigana marada kaa dhacday, yacni ninka xasan toob la yiraahdo adigana marada ka rid oo cimaamad beel ku rid, oo asigana mataqaanaaye video laga duubaya isagaa dharkii siiya dheh iyo wax lamid ah. ayadana sidaas ayay dhahday. marka aniga isma dhahayo isma dhahayo aniga qof weyn oo mataqaanaa oo caqli leh ayaa nin dharkiisa xiranayso. midaada kale waxay nooga dhigtay Fartuun Balbalaarka inay hees mataqaanaa ay tahay mid mataqaanaa waqti baashaalayeen laga duubay. yacni waxay dhahday aniga ma rabin in laga duubo heesta, anagoo baashaalayna beenbeena laga duubay, aniga maba rabin inay youtube ka soo gasho, mana ku qanacsaneen. my sister adaada ku qanacsaneen maxaa mataqaanaa clip labaad u soo duubtay oo u tiraahday mataqaanaa waan ku qanacsanahay, dadka soo hadli doonana yacni anigu waxba igama gelin. marka waxaan doonayaa walaalaha Soomaaliyeed inaan u sheego, yacni walaashay Fartuun Balbalaarka inay yacni afaf badan ay ku hadlayso. dhowr video ay soo dhigtay youtube-kan arkay, yacni mar waxay leedahay aniga mataqaanaa wax ma qori kari, wax ma aqrin kari. marna waxay leedahay fariin baa lii soo diray, yacni gudaha markaan u galay waan akhriyay. yacni walaashayda waxaan ku dhihi lahaa aniga hal af ku hadal, ilaahayna ka baq. midaada kale bini-aadan ha ka cabsanin oo yacni mataqaanaa bini-aadan yacni waxay kaa qaadayaan ma lahan. allah subxaanahu watacaala waxaa ugu baqi weysay walaal, mataqaanaa bini-aadan ha ugu baqin. taas ayaa ku dhihi lahaa. marka xasan toob aniga yacni waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkay ah, adigana sidoo kaleeto gabar walaashayaa tahay, mana difaacayo. laakiin runta waxay tahay mataqaanaa in aad adiga raali ku ahayd oo markii dambena baasha kula xumaatay. marka igaraay waxaa kaamirada gacanta ku hayaa, markaa sas darteeda u jaraynaysaa. sidoo kaleeto waa dhididsanahay, kuleelaa jiro. marka sidoo kaleeto waxaa rabaa inaan halkan kala hadlo youtubeyaasha kaleeto, youtuberyaasha kaleeto. yacni ma rabo inaan magacaabo oo yacni warka yacni buunbuuninayo oo warkay maqlaan yacni maanta oo dhan sheegayo xasan toob intuu ka dhacay, xasan toob raaligelin uu bixiyey, xasan toob uu ku jajaasay, xasan toob intuu ka baxay.
maxaa idinka gala adinka dadkaa ku mashquulina laakiin iniga waxaa ku mashquulshaan raadiya insha allah waxaa rajeynaya inaad iska dhaafi doontaan warka aad la wareegaysaan ma garanayo walaa waxaa ka dheefaysaan mataqaana inaad war wareejisaan badankood waa niman rag ah ma xishoonayaan sida dumarkii lagu yaqaanay u dhaqmayaan waxaa idin dhihi lahaa xishooda bil ramadaan baa lagu jiraa ilaahay ha laga boqo sidoo kaleeto toobadu way furan tahay walaashay fartuun waxaan ku leeyahay haddii aad mataqaanaa toobad keentay qofkaa fiican ma jiro marka insha allah waxaa ku dhihi lahaa hore u soco dadaal sidoo kaleeto walaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waa idin salaamayaa fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar janaalka videoga like garee share garee ra'yi haddaad qabtid commentiga kusoo qor waa mahadsantihiin